markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf. تبع سعر مجدي صوماليا فررم عدي والكا دفاعو عدي مكة عيانو حسنو سجنو عدي غمو وقشت زغمو زي فكر قناتو زي بدك يدانو الاتراك إلزا صومال قوي مغتي تسنعزلتو زين الخير أرمى تسعدين أرمى منكر زمن الدعير زمن التكسير محل التكسير. codadkaasi aad maqlaysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii Diseembar 2018. horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigranya ee looga hadlo Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Afwerki waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihiisa soo dhawaanshaha geeska Afrika ee uu ololeynayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. waxaase wadahadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada wadan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii Sebtembar 2018. qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarta Soomaaliya. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. sargaalka koobaad oo aan xilligan u shaqaynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horaantii bishii Sebtembar 2018. fikraddaasise waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya sidan kuma gaaraysid waxa aad doonaysid inaad hanatid. dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. sargaalka koobaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. si taasi loo fuliyana bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil military iyo khubaro dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayn ku sameeyey meelo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciisaley, xeebta Jaziira iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. kadib muddo 3 toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaas ay caqabado dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda sida ay sheegeen saraakiishu. sidaas darteed waxaa tababarka la go'aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid ah saraakiisha aan wareystay qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay'adda nabad sugidda ee NISA sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. waxaa taasi sii kaabay sargaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda bariga Afrika oo loo xil saaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan. sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea. galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan waxaana uu arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. sababa dhinaca amniga awgeedna galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi.
galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay iyo in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. qaybtii ugu horreysay ee ciidankan waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19 bishii August 2019 waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economic class. khabiir diyaaradaha ah ayaa u sheegay galka baarista in diyaaraddaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine balse ay ku hawlgasho magaca dawladda Eritrea. qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20 bishii Oktoobar 2019. intaasi wixii ka dambeeyeyna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyey dalka Eritrea bishii August 2019 haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea. arinta Eritrea ciidan loo qaaday anu kulli ma garanayo tay wasiirkuna meel kale wada ciidan ka keenay ma aysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka Soomaaliya anu kulli ma ogin taas. galka baaristu waxa uu la xiriiray sareeye guuto Odawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arrintan hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan u dirnay. qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyey dilaacistii cudurka coronavirus hase yeeshee bishii Juun horraanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3500 oo ah qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid ah saraakiishaasi. 2 ka mid ah 3 sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea ay tiradoodu u dhaxayso 5,000 ilaa 7,000 oo askari. sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. 2 ka mid ah 3 sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koobaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan hal mar. markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdana waxay ahayd horraantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay markaas oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. dawladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan waxay dawladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyay gobolka Tigray. 27 bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayay su'aal ay warfidiyeenadu weydiiyeen waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea. ciidamadeena waxa lagu tababaraa dhammaan dawladaha saaxiibka ah. Eritrea kamida, Turkiga kamida, Uganda kamida, Djibouti kamida, meel walba way loo joogaa. meel walba ciidanka ay loo joogo loogu tababaraa laakiin waa dawlad xumo inaan ku tilaacdo halkaas intaas sii joogtay halkaas lagu tababaraa. hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la'aan ku abuuray qaar ka mid ah qoysaska dhalinyaradan loo qaaday Eritrea iyagoo ku eedeeyay dawladda inay ka gaabisay inay ka hadasho xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. mid ka mid ah waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 22 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iiga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea. ciyaal kala barnaamijyo waxay yiraahdeen qadar baa dad loo qaadayaa xirada qadar buu galay meel nabad sugidda meeshaas dadka laga qoray qadar ahaan baana dadka loo qoray kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea. muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay. hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9aad la soo hadlay wuxuu tababarkii waa noo xirmay Eritrea joognaa saasaaban uga war helay. hadda halkee buu joogaa wiilkaagu ma hubtaa 100%? meel uu joogo hadda anugu mana hubo mana ka warqabo asagu bishaas uu soo hadloo yiri Eritrea joogaa tababar baa xirmay inba ka dambaysa wax waran oo aan ka hayo male qayladhaantan dambana dad baa keenay waxay yiraahdeen niman oo wariyaal oo Facebookyada soo dhigay waxay yiraahdeen ciidiyaalkii dagaal baa la geliyay kabacdi dad badan anagoo hadalay
facebookyadan ku jirnaa waxaan nidhi dawladda codsanay in nala tuso ilmahayagii ama jawaab nala siiyo ama caddayn nala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin in ilmahayagii nala tusaan rabnaa. waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi axmed xasan cali oo wiilkiisa cabdicasiis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019. anigii asaga waxaana dhex martay wuxuu yidhi aabba qadar baan u socdaa qadar baa dad loo qaadahayaa halkaana wax shaqaa iyo wax nolol midna kuma haysto shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi. adiguna maxaa tiri? aniguna okay qalinkaan ugu duugay. Eritrea inuu joogo goormaad ka warheshay? 2019 bishii u dambeysay ayuu marna la soo hadlo wuxuu yidhi Eritrea la geeyey. muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea? tababar baa naloo furuu yidhi xeerigaan ku jirnaa ciidan baa naloo tababaraa buu yidhi. labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. kasoko waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray waxaa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabbaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore. wuxuu ugu yidhi baabarkiisa waa noo dhammaaday wax yar baa noo haday maxamed fara badan oo Soomaaliya haddii lagu yidhi dagaal baa la geliyey waa been waanu isu warhaynaa intaan joogno ayaga Soomaalida waxaan ku yidhi wax dagaala miyaa laydin dal aniga waxaa ka soo kuushay oo modelada laga soo kubay midiyaa laga sifaayey Soomaalida ciidankii milashii joogay Eritrea dagaal bay galeen ma qaarsadeen meelahaas waa la laayey aniga uruursankiisa wahay wax dagaal loo qaaday ma jiraan sid loo hadeer loo hadalhayo loo wadaana ma jiraan waxaa hadii qaar baa beerka lagala baxay waa been dagaal baa loo qaaday waa been tababarkii waa noo dhammaaday waa noo jabajabo inaan faydaan sugayna. galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero isla markaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22 bishii Janaayo ee sanadkan. dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid ah waalidiinta oo sheegay in mas'uuliyiinta dawladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. cali jaamac doodi waxa uu galka baarista uga warramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu u dhintay sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda NISA. 2020 bishii shanaad ayaa la yimid xafiiskii soo wacay wili xafiiskii ma soo wacin lambar dibadeed ay soo wacay wuxuu yiri xafiiska laga rabaa adiga inta joogtaa wuxuu yiri meesha jooga iska dhaaf xafiiska laga rabaa yaa rabaa in madaxdiga sareysa ku rabto yiri xafiiska imaw anuu balad weyn joogo xafiiskii aan xilliga tigid lagu soo diray anoo yaaban oo leeyahay wiilkaaga ma dad diray wiilkaaga maxuu ma fakaday wiilkaaga kala ku dhacday. xafiiska uu tag ku yiri waa kee? waa NISA xafiiska NISA sirdoonka gurigii maama Qadiijo oo shangaani ku yiri shangaankii ku yilo. markaad xafiiska tagtay yaad ugu tagtood la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay keebo ah? wallahi niyo hawo horta anigu madaxda Itoobiya marka arto ma arko madaxdaas lama arko laakiin ninka xukumo la leeyahay Fuad Yaasiin anigu hadda sawirkiisa wajigiisa waa laakiin asigu ma arkin umad kale xafiisada ka shaqeyso meelaha fadhiso xafiisada joogto ilaahu ila warantay. laakiin de qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay? wuxuu sheegaa arrintii waxaan ahay wuxuu anaa ku wacay anugaaga ma taqaanaa oo iga bilaabo war meeshii aan iska baran lahayn asiga aan weydiin lahay eriisa anugayga uu iga bilaabaybo anugayga marka 12 maalmood aan sugay arrintiisa markii la sheegay xaal lagu sheegi doonaa habeen 3 saac la wacay mugaa meeshii tagaynay oo sawiradan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaan waa aqaanaa ya muxuu ana dhalay waa magaciisa Cabdisamed cali jaamac liida maxaa dhacay waxa ku dhacay ninkaan waa dhiftay wari marka ninkii taliye meeshii iyo waxa xafiiska jooga magaciidoodii iyo markaas ay ugu dambeysay moraal oo dhan maskaxdayda dhan. wuxuu u dhintay ma kuu sheegay? maya tababarka ku dhintay ninkaan waa meedkii siiyaan meedkii ma aynay dhimo soo joognay. ka bacdina maxaa dhacay? kadib marka diiaan isku ogeyn xilligii aan goorma maana xilli kasta anaga ku wacaynay ilaa haddana wax wacan mahay.
dhinaca kale waxaa dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaabin ku samaysay dhallinyarada loo qaaday dalka eritereya iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka qatar si halkaasi loogu tababaro islamarkaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka qatar eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay galka baaristu kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamsa oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu ii soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda qatar kaasi oo lagu sheegay in dowladda qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka qatar si uu uga soo shaqaysto waxaana qoraalku uu ku baaqayey in arrintaasi baadhitaan lagu sameeyo gaashaanle sare axmed cabdulaahi sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka eritereya sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi haarun waa maasan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida loo qaweeye waxaa shaqo ku leh hogaanka tababarka oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas kadibna waa la xayeysiiyaa imtixaamaa loo galaa dadkii ku guulaysto markaas waxay galaan markaas qaybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaadaa mana arag aniga hadda ka hor ciidan tababar loo qaaday oo na loo shicin meeshay aadayaan xiriirkoodana la waayay dabcan dadka waxaa weeye askariga markuu yahay qoysuu ku xiran yahay qoysuu leeyahay waalidiin uu leeyahay waana qasab waana waxaa weeye waa shuruud in maaragtay ay la xiriiri karaan waayahay marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadal hayay ciidankan la geeyey eritereya sideed u aragtaa in ciidankan la geeyo eritereya lagu tababaro iyo qaabkay wax u dhaceen haddii aad ka warhaysay horto ciidanka la geeyey eritereya aniga waxaan hubbaa inaysan ahayn ciidan hoos tago ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waayo sidaan kuu sheegay su-aashaadii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya marka nidaamkaasna looma marin oo sidaa ugu warqaba kolle maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore qatar la geenayo sidaasna ay ku qorteen kadibna eritereya la geeyey marka kadibna xagga markii la geeyey warkooda la waayey marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka soomaliyeed ka tirsan ciidan booliisna ma ahan marka ciidan kole de waxa weye sida la sheegayo ciidan hoos tago nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyaan waxyaalaha xasaasi waxaa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen laakiin waxaa ficneed haddiiba maaragtay ciidan tababar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo ay la xiriiri karaan hadday caafimaad qabaan inay maaragtay loo fasaxo tan hadda ma dhici lahayn oo wararkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama haayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la marka taasna ma dhici lahayn haddii markii horeba dahafurnaan ay jiri lahayd maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen tigray walaal de aniga horto su-aashaas waa adagta in laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay ma ahan laakiin markii horeba wadda sifo sharci ma aaminsan in loo maray qoritaanka ciidankan qorsooday iyo dahafurnaan la-aan badan waa i muuqato marka waxaan kale la sheegayana hadday run tahayna de waxaa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warhaynin baarlamaankana ka warhaynin waaba arrin kale haddii aysan dhicinna de oo khalad ee tahayba in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay waxaa weeye markii horeba dahafurnaansho hadday jiri lahayd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan soomaaliya oona maaragtay waalidiintana ka warhaynin baarlamaankana ka warhaynin oo dad kooban ay ku eg tahay maaragtay hawshan waxaa weye ma dhici lahayn markii horeba dahafurnaa hadday jiri lahayd galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo aan ka soo jawaabin codsigeenna waxaa kaloo galka baarista uu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda niise ee qaabilsan iskudubaridka tababarka ciidanka soomaaliya ee dalka eritereya kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray islamarkaana aan ka soo jawaabin farriintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee eritereya yamane meskel oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinnay ugu dambayn galka baaristu waxa uu la xiriiray sarkaal ka tirsan dowladda etoobiya
sarkaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.